soo dhawaada baalkeena toddobaadkan dawladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku guuleysatay in qawaariista Al-Shabaab si buuxda looga xoreeyo degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Degmadan oo sanado badan saldhig u ahayd qawaariista ayaa waxa ay xoreynteedu cimri degdeg ku ridaysaa in ay sii joogaan dhulka Hirshabeelle iyo Galmudug. deegaan lagu magacaabo ciidka Jimbilow oo hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa toddobaadkan lagu soo bandhigay xabaal wadareed Al-Shabaab lagu laayay kadib dagaal ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan eegaynaa saddex faa'iido oo laga dhaxli doono xoreynta degmada Aadan Yabaal. kow qawaariista waxa ku adkaan doonta inay sii haystaan dhulka ay kaga dhuumaalaysanayaan gobolka Shabeellaha Dhexe. laba waxa meesha ka bixi doona weeraradii rogaal celiska ahaa ee Al-Shabaab ay ka soo qaadi jireen degmada Aadan Yabaal kaasoo ay ku soo qaadi jireen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. saddex qorshaha xiga ee xoreynta Aadan Yabaal waa inay ciidanku u sii gudbaan gobolka Galgaduud oo kooxda laga xoreeyo Galcad, Masagawa, Ceeldheer, Ceelbuur ilaa iyo Xaradheere. dawladda Soomaaliya toddobaadkan waxay Muqdisho shir isugu yeertay maalqabeennada ajnabiga ah iyo kuwa Soomaalida ah kaasoo oo diiradda lagu saarayay sidii loo maalgashan lahaa dalkeena dihan. dawladda Soomaaliya oo gacanna kula dagaalamaysa cadawga Al-Shabaab ayaa gacanna ugu gurmanaysa dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka iyo isbeddelka ka yimid cimilada ee saameeyay dunida. hay'adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka qaranka ayaa toddobaadkan gargaar ka dejisay magaalooyinka Marka, Baxda iyo Baraawe halkaas oo la gaarsiiyay qoysaska ay saameeyeen abaarta ka jirta qaybo ka mid ah dalka. madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan ka hadlay dagaalka dalka looga soo afjaraya qawaariista Al-Shabaab ayaa sheegay in dawladdu ay gacan siin doonto nolosha dadka liidata ee ku nool degmooyinka laga xoreeyay qawaariista Al-Shabaab. si gaar ah degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo matooradii ceelasha biyaha ay hore u sii qaateen qawaariista Al-Shabaab ayuu madaxweyne Xasan Sheekh ballan qaaday in si degdeg ah dib loogu howlgelin doono. waa inoo toddobaadka dambe iyo baalkeena xiga.